maantay oo taariikhdu tahay 24 bishii 11aad 2022 waxaa magaalada ka dhacay gaalkacyo dhacdo naxdin leh oo ay ku dhinteen 4 qof oo ku dhimatay gaalkacyo waxay sababsadeen isku dhac laba maleeshiyo beeleed oo isku hayay dhul aad u yar aadka u yar waxaa ku dhintay 4 qof qofna waa ku dhaawacmay dhammaan waxaan uga tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo ehelkii ay ka baxeen samir iimaan uu ka siiyo qofka ku dhaawacmayna ilaahay waxaan uga baryayaa inuu boogadhayo intaa ka bacdi dhacdadaasi waa dhacdo xilli hore oo dhowr 20 sano soo jiitamaysay laakiin si soo booda ah bay shalay u abaabulantay ciidamada ammaanku hadda ay ka howlgaleen oo dhismihii joojiyeen oo kala kaxeeyeen dadkiina ayagoo dhex taagan baa lagu xabadeeyay ciidankii ammaanka oo maryahoodiina xabadii baa gubtay baabuurtoodiina rasaas baa ku dhacday ciidankii ammaanka meesha joogay ciidan ka tira badan oo labada dhinac ah baa meesha isku qabsaday ayagaa dirqi uga baxay dhacdadaas sidaa haddii u dhacday iyo dhulkaas guddiga amnigu waa ka shiray maantayto guddiga amnigu arrinkaas wuxuu ka gaaray 3 qodob saddexdaas qodob oo ah 1 in guddi loo qabto ciddii ka dambeysay dhacdadan waxaan aaminsanahay in gacmo kale ay ku jireen oo kooxaha nabadiidka ay qayb ka yihiin dhacdadaasi waxaa loo saarayaa guddigaasina wuxuu raadinayaa xal u helidda dhacdadaas laftigeeda inuu xal u raadiyo sidii loo dhammaystiri lahaa oo dib dambe aysan ugu soo noqoteen guddigaasna waa magacaaban yahay oo guddiga amniga magacaabay wareegtuna ku soo bixi doona insha allahu tacaala waxaa kaloo guddiga amnigu isla qaatay maleeshiyaadka hubaysan oo sida qabaa'ilka u abaabulan oo gobolkan dhulalka keliya inay dadka ka boobaan ama ka dhacaan shaqadoodu tahay laga bilaabo maanta haddii ay dhacdo waxa laga qaadayaa tilaabo waxayna noqonaysaa in dawladdu ay gacanta ula tagto ayaga iyo hubkoodana lala wareego laguna laayo qodobka afraad oo guddiga amnigu isla qaatay waxa weeye gebi ahaanba dhulkii lagu diriray oo dhacdadan maanta dhacday ay ka dhacday 4 qof ay ku dhimatay in dawladdu ay la wareegtay dhulkaas laga bilaabo maantay dhulalka kale oo la isku haysto dhul kasta oo dhibi ka dhacdo oo dhaawac ka dhaco ama dhimasho ka dhacdana sidaas oo kale dawladdu la wareegaysaa ciddii dhul leh waxaa la rabaa inay sharciga u dacwooto laakiin ciddii dagaal ku gasha oo dad ku disha ama ku dhaawacda dhulka waa lala wareegayaa kan maantayna dawladdu waa la wareegtay cid tagi kartaana ma lahan ciddii tagtana waa uga digaynaa